ومالكي صدحات وإصدرتشوه وأتكع حرام سنتهين دريكي الموشل الساعة بباعتها دولة فدرالك وضوه وقالوا له رئيسنا حسن الشيخ محمود كان أبابنا يعراسك يصومال وردن قارهان جبلان وهذه كلمة عن عنا دريكينا ووقتهم قيل كميرا دولة جبل هوسي قارهان ديرانك دمرة بدادة ديرانك راس الكندولي وعيدمرة جبلان دعنتك وهيين وهذا ديران أمانة ونظرة ودكتور ونقدون عالية وإسكولات كي تبلع كي جلسين البطاولي كبستين حبلنا على أقوم إن غير الدولار ونص وقالي وواحد كحنا صوتي سماهم لواتر حتى الشيخ أو قهر يسومال يوضن وحد داولي ويل دقلاء وغيرنا إياه وحمر كهالية أو حتى لو نقد محسما يداول وعلى أكسين دورنا من يراه وإسكول هذه ومركا يصور لغوته وقت الدولي نادي ربي يغيث سؤال كمين يوحى حسن الشيخ دوري يوحى لمرأيه إنما نوصل دولة فقرة صوماليا ويقول الوزير الوزاري حمزة يوم مدعوية حسن الشيخ محمود أيها وعلينا هاي إلهي كبقى كتاب بالمرسين صومالي بالنسول كتهين مدعوية أمرك الله دوري ويقول إن ولا هذا الزياد ويا شمسة وما دي وهيستا ومدعوية الدولة يجب لنا الشمسة هيستيق الله دوخيا عاد إلهي مهديسة أدوكين مدعوية الشرعي وايه وانا أبنين ملاحظي ودكاتهين حتى الزيدان إلا ولا همدو والحجة كتان عمدت إلى البربرستان والدميسان إلهي غالي كماها أنا غالي كماها وإنا واني في كندعينا مركونا وحان ليا هاي برشير جبلان هاي نولا ديرو برشير جبلان بوليستو جبلان هاي بوليستو جبلان عدو قال هدعو جبلان عامل ودو وحادوتهين مر والبا شقاقوين كان معها مركن نقول الرئيسي مر والبا وحان وجود بجرلي midnimo iyo wadajir baan ugu gudbin jirnay haddana tii ayadan ugu gudbayna haddii la yiraahdo waxaan rabaa wax walba hadday sharciga ka bayraan waxa weeyaan waxay cagaha la galaan dhiiqo waxaan rabaa qodob inaan dhahaa ciidamada dawladda Soomaaliyeed ee xoogga dalka qodobna waxaan rabaa inaan ka hadlo dawladda dhexe waxaa jira qodobo dastuuri ah oo Soomaaliya heshiis ku ahay qodobada kontani koowaad kontani labaad kontani saddexaad ee dastuurka federaalka Soomaaliya qodobka kontani saddexaad wuxuu sheegayaa in dawladda dhexe iyo dawladda xubnaha dawladda federaalka mabaadi'da ay ku wada shaqeynayaan kaas wuxuu yahay dawladaha xubnaha dawladda ama dawlad goboleedyada inay u madax banaayeen sharciyadooda iyo doorashadooda iyo go'aanadooda waxaa kaloo jira qodobka kontani afaraad oo ah habka deeqaha loo qaybsado oo ah dawladda dhexe inaysan kaligeed awood ka gaari karin aysan wax qorsheyn karin waxna qaybsan karin haddii ay ka mid yihiin xubin ka mid ah dawladaha xubnaha ka ah taas waxaan leeyahay madaxweynaha xasan sheekh oo eedaysana hadda maanta ah inuu xasuusto qodobada dastuuriga ee uu gacanta ku hayo waxa uu sharciga u ogol yahay iyo wuxuusan u ogoleen shalay wuxuu lahaa odawaadow wiilkaygiiyow yaan lugaa dhiiqa lagu geli buu lahaa maanta saa dhiiqa lugaa kula jiro anigoo ah gudoomiyaha haweenka degmada Kismaayo xafladan oo soo abaabushoon oo aad kaga turjumaysaan تعديات حدود كأي نقوق هايسو دولة فدرال كأي الصومالية. هذا البلد هان ببشو شبلان دجالة بدن بهراء وسوق شوي نقوق وليست. هذا أنا وحلانا هاي قلنا فدرال كهلا كالحشور. هذا لك الحشون وحبر بعمارية. هذا أنا عنقبتين نقول سنة سنة إلين كانوا ولا عنقبتين يا. شبلان وحصول دافتيشن سنة عنقبتين وينوسكر في حيثتك. دليل الصوماليين وحي حقيقيين إن الإسكول دوري عتمات كوري برون كوري كلها لقى على قلبين. وأي شيء غير يقول نوران الديجان كونا.
oo nabadda iyo amniga aynu haysano aan laynaga carqaladayn inaad iskooladii aadi weydaan miyaad rabtaan maya inaad waxbarasho weydaan miyaad rabtaan inaad jaamacada weydaan miyaad rabtaan waxaan leenahay Jubbaland ciday u baahan tahay malahan Jubbaland ayaa isku filan Jubbaland intaan in ka badan yaa diyaar u inay u dhimato Jubbaland waxaan leeyahay marka koowaad shacbiga Jubbaland ma nahay diyaar inay iska celin dowladda dhexe diyaar ma nahay mar labaad dadka xaafadaha ku sugan ee maanta halkan aan soo gelin way cadeynayaan iyaga nafteena inay diyaar u yihiin inta soo gaartay inta aan soo gaarin waxaan leeyahay qof walba maanta deegaanka aan ku sugan tahay mas'uuliyad gaar ah ka saaran waxaan leeyahay deegaankan cid colaadan lagu hurinayo ciidanka lagu soo daabulayo Jubbaland ciidan kama qaadayo fariinta xashan maxuud aan u leeyahay dowladda dhalinyarada ee dhalinyarada Jubbaland iyo haweenkii odayaashii iyo dhaqankii wada socda iyo xilwaanadoodii yaa maanta diyaar u ah inay diidaan falada guracan ah ku wada deegaanada Jubbaland waxaan ognahay dhammaanteen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay Jubbaland ku hayso faragelin qaawan taasoo lagu carqaladaynayo xasiloonida iyo horumarka ka jira Jubbaland saas awgeed waxaan rabnaa inaan muujino dareenkeena ku aadan in aynan arrintaas marnaba aqbalaynin Jubbaland waxaan ognahay inay ku jirto dagaal dhan walba oo khawaarijta maanta uma furno dagaal kale oo wiilal Soomaaliyeed ah saas awgeed haddaan nahay reer Jubbaland waxaan u taagannahay ilaalinta sharafka iyo midnimada Jubbaland